horta leerku manaafacaad badan uu leeyahay bulshada iyo magaalada intaba magaalada waxa ay kulay ay ku socodkeeda amba yacni communicationkeeda oo ku fududaa kara waa in la helaa iftiin admiga dadkan waxa u malaysaa dadka qaarkood xataa waxa laga yaabaa inay yacni bilicda ay soo inay soo raacaan iftiinka ay soo raacaan meel yacni haddii koladii mugdita ganacsina kama soconayo waxaad tiraahdaa wax walba qarshe haddii rabto ku kala jarayso magaalada waa iska taqaanaa marka leerka faa'iidooyinkaas bay noo leeyihiin runtii waa wax aad u fiican waana isbeddel aad u qurux badan aadna u wanaagsan kuuna muujihaya nabadda ka jirta waddanka waxaan soo joogay iyadoo degmooyinka qaarkiis mooyaane meel kale aysan shaqaynin iyadoo nalna haynin iyadoo cabsi iyo orod jidadkan hadda aad u jeedaan lagu marayo aan soo joogay maantase waxaan ku faraxsanahay inaan baabuur ka soo qaadan karo kaaraan aan ku tegi karo jasiira iyo meeshaan doono waqtigaan doonana aan soco karo alxamdulilah waa wax aad lagu farxo isbeddel aad u wanaagsan oo lagu farxi karo runtii u muuqdaa bilicda meelaha kale la mid tahay maanta Soomaaliya waxa aad ugu faraxsanahay in 4 saac habeenimo 5 saac habeen 6 saac habeenimo ina magaalada aad ku socon kartid si xornimo ah nalalka u jeedin macnaha ay magaalada wada nalal tahay oo solar ay wada yihiin jidkoo dhan cabsi aysan jirin oo aad socon kartid gaarigaada wadan kartid furudkii ay tahay meeshii raashinka macmacaankii hadda magaalada muxuu ahaa maasha Allah waxa ka jirto muxuu ahaa deganaan iyo nabad hadda nabad haddaysan jirin waqtigaan ma soconayno macnaha qof walba gurigiisa uu ku xaroon lahaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan 7 saac aad xarootid nabadaa jirto runtii sidaa arkaysid bilicda waxay ka soo bilaabatay aerobortka ilaa iyo kilometer 0 ayaan ka shaqaynay meelo kale oo laga shaqeeyay way jiraan laba wado oo kale oo laga shaqeeyay way jiraan oo Sodonka iyo wadnaha runtii bilic soo celinta magaalada way soconaysaa meelaha kale oo dinsanna ayagana waan ka shaqeey doonaa insha Allah